ninkan hadda wuu fahmay runta. taajku ma ahayn mid ku saabsan awood, dahab ama qabsasho. wuxuu ahaa imtixaan. walaal ilaah dartiis like iyo folow igu saar tartan ayaa ku jira. isagoo neef culus qaadanaya ayuu ka kacay barafkii jajabay, wuxuuna eegay taajkii iftiimayay ee gacantiisa ku jiray. qabrigu wuu gariiray. dhagaxii qadiimiga ahaa wuu isjiiray sidii boqortooyo qarsoon oo qarniyo hurday ay hadda soo toostay. hantidii ku hareeraysnayd mar dambe ma soo jiidanayn. waxba kama ahayn wixii uu soo maray. cod qoto dheer ayaa ka dhex yeeray qolka. keliya kan qalbigiisu daahir yahay ayaa xukumi kara wixii lumay. darbiyadii way dumayeen. wakhti ma haysan. seef gacanta ku jirto. taajkuna madaxa u saaran yahay ayuu orday, isagoo ka baxsanaya dhagaxyada soo dhacaya iyo dabka qarxaya. dabinnadii mar dambe ma weerarin. way u hoggaansameen. markuu bannaanka u baxay, duufaantii cirka ku jirtay isla markiiba way kala tagtay. iftiinka qoraxda ayaa si toos ah ugu soo dhacay. boqortooyadii burburtay hortiisa si tartiib ah ayay nolol ugu soo noqotay. webiyo qulqulaya, geedo soo baxaya, dabaylna si deggan u heesaysa sidii dhulku isaga sugayay. isagu mar dambe ma ahayn nin ka badbaaday keliya. wuxuu noqday boqorkii la doortay.